dhegeystayaal daawadayaal halkani waa muuqbaahiyaha shacabka TV. qodobada warkeena maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah qaar kamid ah shaqaalaha gobolka Banaadir oo lacagta laga joojinayo. qodobka kale ee xiisaha leh ee aad isna warkeena maanta ku maqli doontaan ayaa wuxuu yahay maamulka Hirshabeelle oo dib u dhigay guddiga qabanqaabada iyo qabashada xildhibaanada aqalka sare. qodobka kale ee xiisaha leh ee aad warkeena maanta ku maqli doontaan ayaa waxa uu yahay waxaa la sheegayaa in ay jiraan shirkado lacagta Soomaaliga ama lacagta shilinka Soomaaliga ku daabaca gudaha dalka Soomaaliya, iyo Mareykanka oo Soomaaliya ugu deeqay lacagtii ugu badneyd abid. aynu ku bilownay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya faray inuu hakiyo lacagta boqoleyda ah ee la siiyo hay-ado ay ka mid yihiin rugta ganacsiga Soomaaliya iyo bangiga horumarinta ganacsiga Soomaaliya, lana dhimo lacagta wasaaraddu siiso bangiga dhexe maamulka gobolka Banaadir. Tallaabadan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo beeqaamin lahaa dhaqaalaha yar ee dowladda soo gala maadaama lagu jiro xilli kala guur ah. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan ayaa la sheegayaa inuu hakiyay magacaabidda xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare ee maamulkaasi. sababaha uu u hakiyay magacaabidda guddiga ayaa la xiriirta baasaboorka diblomaasiga oo loo diiday xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle sida laga soo xigtay ilo ku dhow xafiiska gudoomiyaha. Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaan weli soo magacaabin xubnaha guddiga qabanaya doorashada aqalka sare, halka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay shaaciyeen magacyada xubnaha guddiyada doorashada aqalka sare. weli ma cadda sida looga gudbayo caqabada jirta iyo xilliga uu guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle soo magacaabayo xubnaha guddiga qabanaya doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxaa meesha ka baxay awoodii dowladda ee u taagneyd maamulka, dabagalka iyo jaangooynta qiimaha iyo sarifka lacagaha. taasina waxay dalka u horseeday inay lacagta shilinka Soomaaliga qiimaheeda uu hoos u dhaco, islamarkaana ay suuqa si fudud kusoo galaan lacago been abuur ah oo door weyn ka qaatay qiimo dhaca sarifka lacagta shilinka Soomaaliga ku yimid. ma jiro tiro koob laga sameeyay xadka ay la eg tahay shilin Soomaaliga been abuurka ah, balse dad badan ayaa u arkay inay tahay xal maadaama lacagtii hore ay qadka kasii baxayso, aysanna jirin cid dowlad ah oo lacag cusub soo daabacday. waxaa la sheegayaa in muddadii burburka dalka Soomaaliya la geliyay lacag been abuur ah oo dad kala duwan ay soo daabacdeen. tani waa caqabad weyn oo si weyn u sumcad dishay shilinka oo markii horeyba la daalaa-dhacayay caqabado kale oo dheeraad ah oo ay ka mid tahay in xaanshida kunka ay ugu weyn tahay uguna yar tahay, taas oo keentay in kunka kaliya la adeegsado. shilinka Soomaaliga ee hore oo weli laga isticmaalo qeybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii ay dowladii burburtay xilligeedii la isticmaalayay, iyada oo ay jirin lacag cusub oo bedeshay tan iyo sanadkii 1991. dowladihii ka dambeeyay dowladii kacaanka ee isugu jiray mid kumeel gaar iyo kuwa federaal ah waxaa marar badan dadaal loo galay in lacago cusub oo tii hore bedesho lasoo daabaco, walow isku daygii ay sameeyeen ay weli miro dhal noqonin. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay soo daabacayso lacag cusub oo naqshad cusub leh. lacagtan cusub oo noqonaysa midii ugu horeysay tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in lacagta hadda la isticmaalo dhammaanteed ay tahay been abuur, suuqana ay ka saari doonto. Dowladda Mareykanka ayaa Talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bani'aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaalida ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka deriska. War ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhawaad 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah kaalmada bini'aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sanado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taas oo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. Deeqdan lacageed ayay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliyeed u sii marisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana tani ay ka dhigaysaa guud ahaan sanadkan 2021 in ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dalka Soomaaliya lacag ka badan 400 oo milyan oo dollarka Mareykanka. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 milyan oo Soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini'aadanimo. Dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhawaad nus milyan qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya.